qaar ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada ganacsiyeedka degmada Togwajaale gobolka Gabiley oo maanta la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa waxay markii ugu horeysay ay soo dhaweeyeen howlgallada ballaaran ee ciidanka bilayska degmada Togwajaale oo horkacay taliyaha saldhigga degmada Togwajaale Nimcaan Maxamed Jaamac oo kula dagaalamayo mukhaadaraadka jaadka ee ka soo talaabay xuduudka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya isagoo taliyaha saldhigga degmada Togwajaale taliyintii xukuumadda Soomaaliya ay joojisay in wax qaadi muddo 25 cisho soo gala dalka dagaal baan uu kula jiray taliyaha saldhigga degmada Togwajaale isagoo tiraba dhowr jeer soo qabtay jaadad kala duwan oo ka soo talaabay xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama degmada Togwajaale ay ku taalo xuduudka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya culimadan ayaa taliyaha saldhigga degmada Togwajaale ku sifeeyay mas'uul howlkar oo ka soo baxay shaqadii qaranka u igmaday waxaana ay sheegeen in taliyaha saldhigga degmada Togwajaale muddada yarada koobneed uu joogay saldhigga degmada Togwajaale uu isbedel weyn ka sameeyay dhinaca amniga iyo la dhaqanka bulshada culimada arrimahaas kale ka hadlaysa ayaa waxay yiraahdeen intan jaadkii la joojiyay mashaqadu aad bay magaalada Togwajaale ugu badatay waayo waxaan aragnay oo xaqiiqo in isha saaray anigu ninka yiri waxa weyn la saarod ayaan ka yimid sidaan uga noqon karaa bilaa jaad marka waxa weyn dhibaatooyin fara badan baa kulli ka jira daraagiskii khamrigii waxa weyn jaadkii taliyaha marka waxa weyn Nimcaan Maxamed Jaamac oo nin daayira aadna u firfircoon shaqada uu qabanay waxa weyn aad baan ugu hambalyeynaa waxa weyn ku garab taaganahay guddoonka fariisahan anaga si fiican u nolol shaqeeyna baan naga dhaxaysa markaasi wajaale marka waxa weey aad baa looga howlgalay haday yihiin marka waxay taliyaha saldhigeed iyo haday yihiin dawladda oo sabab anagoo dhamaantood ku amaanana gaar ahaan taliyaha saldhiga Nimcaan Maxamed Jaamac arrinka marka waxa weey hadiyo jeer aan ka seexanay maalinba oo ku howlan yahay ay kamid tahay marka waxa weey arrimo ugu waaweyn jaadka oo kale haday tahay waxa weey dadka soo talaabinaya haday tahay kala fogaansho oo amartay soo saarayaan howlgalku marka waxa uu fulinayo dawaynu aragnaa kulli wax saacad lagu qarin kara maaha saacado kala muuqata sidoo kale marka waxa weey waan dhalinyaro aad u firfircoon kana qayb qaata marka howlgalka naftiisa isagoo cidna adeegsanay isagoo horeeyada ciidankiisa uga horeeya oo waxa weey maalkiisa naftiisa loo hura aad iyo aad ugu hambalyeynaa cid kastoo noo soo magacaawdayna oo ku hambalyeynaa sida marka waxa uu fiican u shaqeeyo dadka waxa dhalinyarta loo baahan yahay firfircoon kol haday magaaladu xatahay aad iyo aad u hambalyeynaa halkan waxaan uga hambalyeynayaa marka taliyaha saldhigga booliska marka Wajaale iyana halkan waxa weeyaan uga hambalyeynaya oo ugu hambalyeynaya marka shaqada wanaagsan oo marka waxa weeyaan oo ka hayo markaas magaalada Togwajaale gaar ahaan bishan Ramadaan oo markaas waxa weeyaan xakameeyay waxa weeyaan mukhaadaraadkii waxyaabihii markaas waxa weeyaan mamnuuca dalka ka ahaa oo fara marka adag ku qabtay sida markaas waxa weeyaan jaadkii khamrigii xashiishadii waxa weeyaan aad iyo aad marka uu la dagaalamay oo taliyaha markaas waxa weeyaan ku dhaleecaynaya ayaa markaas waxa weeyaan jira marka qofka markaas markuu wax qabto eedaha lama waayo eed way iska imanaysaa oo qof markaas waxa weeyaan xil qaaday eed qaad baleeran markaas taliyaha Nimcaan marka inta la soo bedelay kulli wax badan baa iska bedelay magaaladii iyo wax qabadkiisa haday noqoto dhinacii ka hortagga cudurka COVID-19 iyo haday noqoto dhinacii qaad joojin marka waxa weey aad baan ugu mahadinaynaa taliyaha magaalada Togwajaale iyo taliyihii soo bedelay baan ugu mahadinaynaa taliyaha cusub ee loo soo bedelay magaalada Togwajaale runtii gaar ahaan aad iyo aad markaasi taliyahaasi u fiican yahay waa taliye wanaagsan magaalada Wajaale kulli waxaan ku naqaanaa waa magaalo xad ku taala oo xuduud ku taala iyadoo haddana xad ku taala waxay ku darsatay imika xaaladahan gaarka aynu ku jirno markaasi xanuunkan caalamka kala xidhay ee coronavirus sida awgeed maadaama ay tahay bulsho magaalo aad u bulsho badan oo dadka markaasi isugu yimaadaan ama Itoobiya ka soo talaabaan ama meelo kale ka yimaadaan ama Soomaaliya ka yimaadaan runtii waa magaalo magaalooyinka kale ka bulsho badan oo population badan ay isugu yimaadaan sida awgeed taasi waxay tahay uu taliyahaasi hawl badan ayuu ka qabtay waxaan maanta halkan ugu mahadnaqnaa taliyaha degmada Togwajaale Nimcaan Maxamed Jaamac oo dhawaan la soo magacaabay kulli waxa weey runtii inta uu xilka hayo Nimcaan waxyaabaha qabtay waxa weeyaan lama koobi karo waxyaabo aad iyo aad fara badan ayaa uu qabtay waxaan leenahay Nimcaan Maxamed Jaamac Allah ku barakeeyo barakallahu fiika taliyaha saldhigga Nimcaan Maxamed Jaamac Allah si wax fara badan kolkaas waxa ka qabtay inta xanuunka nasiib jiro aad iyo aad dadaalkana kolkaas u liilaabay waa nin kolkaas waxa dhalinyaro aad iyo aad u firfircoon waxa weeyaan meeshii wax jiraan kolkaas waxa weeyaan ugu horeeya dadka inta kolkaas ciidanka iyo dadka kale ogaan uga soo
horeeya xaqiiqatan aad iyo aad u xoogaala taliyaha saldhiga wajaale oo aad markaasi ula dadaalay nimcaan maxamed jaamac khayr laha siiyo oo taliya aad u firfircoon aad baanu markaasi arrimahaasi uga dadaalaa xataa wuxuu soo gaaray inuu waxyaabaha yare ay la soo talaabanay maqaaxiya kula qayrayaan bulshadeenu inuu markaasi xakameeyo waxa uu aad iyo aad ugu dadaalaa inuu markaasi waajibkiisa markaasi uu guto uu qabsado bulshada aad buu ugu shaqaynayaa waxaan halkan ka ammaanayaa taliyaha ciidanka bilayska Soomaaliland ee soo markaasi magacaabay taliya nimcaan aad buu taliyaha loo soo bedelay magaalada nimcaan maxamed jaamac oo ah runtii taliya khibrad leh oo wax badan ka soo kordhiyay magaalada nin da'yarana ah iyadoo marka hore magaalada ay hawl badnayd oo ahayd magaalo xad ku taala oo ay ka soo gali jireen xuduud ay ka soo gali jireen dadka Oromada ah ee maxaan ku dhahday tariibka u socda halka laga kontrabani boolisku dib ku qabeen haddana waxa weeyaan taliya aad iyo aad wax badan ka soo kordhiyay magaalada aad iyo aad loo firfircoon imikana xaaladdu ay ka sii dartay oo coronavirus iyo xanuunada adduunka ay fiiyay Khadar Cabdillaahi telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV degmo ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley.